يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله ليال خطبتنا waxay ku saabsan tahay ixtiraamka muallimka iyo muallimku inuu doorkiisa qaato. qofka dadka baraya aqoonta ay ugu sii muhiimsantahay aqoonta diintu, tamaadiga ummadda wax u taraysana waa la mid. markaynu eegno dadkeenii saalixiinta ahay waa wanaagsanaa iyo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxaa loo weynayn jiray dadka mucallimiinta iyo cidda aqoonta leh si aad iyo aad u sharaf badan oo qiimo leh oo iyaga dhiirin gelin karaysa. qisada imika ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa madaxdu sida ay u weynayn jireen mucallimka. marka raciyadda iyo bulshada laga tago, mucallimka dhalinyarada waxbaraya jiil alqaadim, qarniga soo koraya waxbaraya, si weyn baa loo weynayn jiray. imaamka aynu qisadiisa ka hadalnay wuxuu ahaa Haaruun ar-Rashiid oo madaxdii muslimiinta soo maray ka mid ahaa. intuu xukumayayna la ogyahay dowlado aada u badani maanta inay ka taliyaan buu keligii xukumayay. daruurtu markay soo dul marto wuxuu odhan jiray meeshaa doonto ku da, kolley waa la ii keeni doonaa un dakhliga kaa soo go-a. meeshaad ku da-ayso khayraadka ah anuunbuu isoo gaari doonaa meeshan ka talinaya. dhul badan baa ilaahay gacanta u geliyey. laba inanuu dhalay buu u dhiibay imaamkii weynaa Asmaci la odhan jiray. wuxuu leeyay laba arrimood baan kaa rabaa inaad barto, aqoonta iyo aadaabta. mucallinku muadibna uu ahaa berigaas, adaabtuna waa aqoonta oo ilmaha lagu rabeeyo si akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsana u yimaado. wuu soo kormeeray maalin maalmaha ka mid ah. waana loo baahan yahay waalidku inaanu ka maqnaanin ardaygiisu goobta wax ku baranaya uu ka warhayo. wuxuu soo maray labadiisii inan, mid ka mid ahoo cagaha u maydhayo sheekhiisii. sheekhuna markaa biyaha uu ku shushubayo. inankani waa inankii madaxweynuhu dhalay sheekha cagaha u maydhaya mucallinkiisa. markaa wuxuu ku yidhi waxaan kuugu keenay sheekhow inaad edbiso, aqoonna siisa ilmahan. marka waxaa wanaagsanayd inaad labada howloodba isaga u dhiibto oo labadiisa gacmood midna uu kugu maydho midna biyaha uu ku shushubo. laakiin adigu faragelinta aad cagaha ku samayseed gacmaha ku maydhaysaa sax maha, iska daa. labadaba isagu hana maydho biyahana ha ku shushubo. halka innaga laga yaabo in la odhan lahaa waa la gumaystay ama ilmihii baa la abuyuskareeyey oo lagu xadgudbo moralkiisii la dilayaa. sidoo kale waxaa ahaa inankiisii isaguna madaxweynaha noqday ma'muun la odhan jiray oo kuwii lasoo tababarayay mid ka mid ahaa. ayaa inankiisii isaguna waxa u dhiibay imaamkii naxwada yaqaana la odhan jiray alfaraa oo ka mid ahaa cilmiga naxwaha ragga aada u yaqaana. labadiisii inan buu isaguna u dhiibay. kani waa kii lasoo rabeeyey, isaguna carruurtiisu sii rabeynaya adaabta iyo tawaaduca iyo aqoonta si ay u qaataan. waa nin casharkan hore usoo qaba oo aanay dhib ku lahayn. labadiinana uu dhalay ma'muun waxay maalin maalmaha ka mida isku qabsadeen. mucallinkoodu marka uu baxayo albaabka ka baxayo, kii kabaha u dhigi lahaa si ay u weyneeyaan mucallimka, albaabka intuu ka furo kabahana u diyaarin lahaa. shaqooyinka kale way qabanayaan meelahan waa meelaha dadku ka yara habradaan ama ka yar xishoodaan had iyo jeer.
markay xoogaa ku murmeen markii dambe waxay ku heshiiyeen adiguna cagtaa midig kabteeda dhig aniguna ta bidix baan dhigayaa waynu kala qaybsanaynaa sidii bay ayay ku heshiiyeen marka labada inan marka mucallimkoodu baxayo midina kabtaasuu dhigaa midina kabtaasuu dhigaa saasuu mucallim ku baxaa warkii wuxuu gaadhay inamada aabbahooda madaxweynihii waddanka ah kaa mucallimkiibuu u yeedhay faraa oo dee uu doonaya aftahanimada iyo gabayga iyo codkarnimada iyo fasaaxadda inay ka bartaan si ay u noqdaan dad ummadda wax gaadhsiin kara oo khudbadayn kara ummaddana qancin kara oo cilmigii diinta iyo luqadaba inay ku fiicnaadaan buu doonaya marka luqawigan laga kaxeeya waxaa loo geynayaa ninkii caalimkaha diinta garanayay marka sheekhiibuu weydiiye wuxuu ihi man acazu nnaas dadka yaa ugu sharaf badan wuxuu ihi dee qofka amiirulmu'miniinka ee madaxweynaha ummadda ah unbay ila tahay inuu u sharaf badan yahay kaasi uma sharaf badnaa waxaa u sharaf badan buu ihi mucallinka amiirulmu'miniinka carruurtiisu cagihiisa ay isku haystaan kabihiisii ay u dhigayaana labadiisii inan ay u adeegayaan mucallinkaasaa u sharaf badan buu ihi dadka madaxweynuhu uma sharaf badnaa buui marka sheekhu wuxuu u qaatay in madaxweynaha loo geeyo war qalada oo aanu arrintan ku qanacsanayn kadibna wuxuu ihi anigu umaan dirin hawshan laakiin dhallinyaro ahaano iyaga isxilqaamay ixtiraam daraaddeed cilmiga iyo culimada ay ixtiraamayaan bay sidan u yeeleen marka inaan u diidana way ila noqon weyday maya haddaad u diidi lahayd baan ku canaanan lahaa buui haddaad u diidi lahayd ayaa canaanta ku iman lahayd ee imika canaani kuma haysato tanina cisi bay u kordhinaysaaye dulli uma kordhinaysa buui inay mucallimkooda sidanoo kale ugu adeegaan ibnu cabbaas radia allaahu canhu oo ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in adeerkii waxa uu aada ugu dadaali jiray had iyo jeer cidda wax ka faa'idaysanayo markuu guriga ugu tago inaanu aqalka ku garaacin oonu iscaajinin ama aanu kadeedina uu ku sugo bannaanka oo dabaddaasuu ku sugaya dabayl kasta ha dhacayso kulayl kasta ha dhacayo ilaa uu mucallimkaasi raaxadiisa intuu bogto bannaanka u soo baxo isagoo kari karaya inuu u galo berigii dambe u arrintaa ka hadlayoo waxau ihi dalaltu taaliban facazaztu madluuban cilmiga dulli baan u soo maray markii aan daalibka ahaa aan raadinayay laakiin markii dambe aan noqday qofkii madluubka ahaa ee la doonayay baan cisigii helay buui marka haddaanu dulliga qofku usoo samrin marka hore cisiga cilmiga ma helo markuu doonayo qofku mustaqbalka in la ciseeyo waa inuu isagu dulli soo maraa buu leey iyo tawaaduciyo inuu isdhuldhigo taasi waa arrintii la xidhiidhay casrigii hore iyo sidaa u horumartay ummaddani ama ixtiraamka ay ugu hayeen mucallimka casrigan aynu joogno ummadaha had iyo jeer la yidhaah adduunyaday ka horu mareen waxyaabaha ay ku horu mareen waxaa ka mid ah dadkooda aqoonta leh ayay sharfaan ama ay ciseeyaan ama mu-asisadda waxbarashada iyo cidda aqoonta ku howlan ra-iisul wasaaraha jabaanka ayaa beri dhaweyd waxaa la weydiiyey si dhaqsaa u horu marteen oo alaabtiinnii waa tan qaaliga noqotay adduunka laga wada baadi doonayo intii laydin baabiyey kadib in yar baa ku horu marteen maxaa u sababa markaa kelmad caanaba uu ku dhawaaqayo waxau ihi bada-naa min xaysu intaha alaakharuun aqoonta waxaanu ka bilownaa kuwa yagii hore halkay soo gaadhsiiyeen qolyaha yagii hore madax iyo aqoon-yahanba intii ay sameeyeen ma burburinagu halkii baanu ayaanu kasii anba qaadnaa wa tacalamnaa min akhdaa'ihim wixii gafay galeenna waxbaanu ka baranaa haddaad iminka wax cusub bilowda adiguna sidii kii hore aad u gafaysa marka raggii hore gafkoodii kuma noqono ee wixii saxda ahaa baanu qaadanaa waxay ku gafeenna waa iska daynaa wamanaxna almucallima xasaanata diblomaasi mucallimkana waxaanu siinay mudnaanta uu leeyahay siyaasiga wasiirka iyo wixii lamida dadka mudani mudnaantay leeyihiin iyo dhowrsoonaantoodaanu mucallinka siinay ummadda waxbaraya waraatib alwasiir iyo wasiirka mushaharkiisa waxtiraam alamiir iyo boqorka waddanka sida loo ixtiraamo
boqorka waddanka sida loo ixtiraamaa macallinka loo ixtiraamaa mushaharkana waa la siiyaa mudnaanta siyaasigana waa la siiyaa aqoontii horena waa ka faa'iidaysanaa buui waxay isugu soo ururaysaa basharka iyagaanu dhisnaa kuwa dhisayana waanu ixtiraamnaa beri dhoweed islaantan jarmalka haysata ayaa waxaa codsi u soo jeediyey garsoorayaasha waddanka markaa waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay in nala gaadhsiiyo xagga mushaharka mucallimiintu intay qaataan oo kale kelmad caana bay tidhi oo waxay tidhi kayfa usawiikum biman callamuukum sidaan idinla simi karayaa dadka idinka wax idin baray maadaama mucallinku yahay garsooraha kii soo saaray la sinmi kari maysaana raalli ahaada bay tihi mucallinka siyaabaha waajibunaa tujaaha almucallim qofka ummadda wax baraya aqoon faa'iido la baraya waxay nagala gudbani waxa weeyaan shacabka iyo ardaydaba xusnu tacaamuli macahu wa tawqiiruhu wa taqdiiruhu fa huwa bimansilati waalidik in la weyneeyo mucallinka sida waalidka loo weyneeyo oo kale wixii uu mudan yahay alxirsu cala alistifaadati minhu iyo aqoontu hayo qofba ilaahay waxbuu baray in laga faa'iidaysto fa huwa yamliku umuuran kaiira laa tamlikuhaa waxa uu yaqaanaa wax badan oo qofkan ka faa'iidaysanaya aanu aqoonu marti uga yahay alxirsu cala aliqtidaa'i bihi fi alacmaali asaalixati waalxasana iyo in lagaga daydo wixii wanaagsan akhlaaqda fiican iyo aqoonta wanaagsan iyo dadaalka an tudaafica can cirdihi wa taxrisa cala alibticaadi can iqtiyaabi iyo in la xanto oo sharaftiisa meel lagaga dhaco in la iska ilaaliyo mucallimiinta beryahan waxaynu yaro aragnaa mucallim baa la leeyahay inan yar buu kufsaday ama inan yar markaa waa la xidhayaa waa la xaakimayaa hay-adihii dabagalka xuquuqul insaankuna way ka daba qaylinayaan gaaladii baa ka daba qaylinaysa mucallimiinta markaad u yaro fiirfiirsato waxay u badan yihiin kuwa qur-aanka dhiga qaarkood xaasisbaa bay leeyihin qaarkood waaba rag waaweyn qaarkood ilmaha yara lagu sheegayo mid wax ka suuroobaanba maaha waa 2 jir iyo 3 jir iyo wixii la mid ah si kastaba ha ahaatee arrimaha waxa iska suuragala waa suuragal in ay ku jirto gacan cid kale mar haddii hay-ada iyo xuquuqul insaan iyo waxaa soo galaan oo sheeko ku salaysan tanfiir can ilqur'aan dadka in qur'aanka laga ereeyo dadka in qur'aanka laga didinayo oo la shaabadaynayo qur'aanka iyo ehelkiisa waa arrin suuragala sidaa daraaddeed hay-adaha waxbaadha iyo garsoorka iyo cidda arrimahaasi ay soo galeen oo dhan waa in laga fiirsadaa waa in la hubiyaa waxaan inuu yahay wax jira iyo inuu yahay dicaayad maxay dicaayaddii ugu badatay dadka qur'aanka dhiga un ee mucallimiinta kale ay ugu iman weyday arrintaas ka fiirsi bay u baahan tahay marka wax inagoo aan go-aan gaadhaynin oon la odhanaynin waxaas wuu jiraa iyo ma jiro waxaynu leenahay dadkaa ka daba qaylinaya calaamad baa ka muuqanaysa ee xuquuqul insaanka iyo hay-adaha isxambaarkaas waxbaa ka jiri karo waxooda waynu naqaanaaye ha laga fiirsado cirdiga qofka waxaan uu sameeyey goorta la odhanayo sine iyo xumaan lagu sheegayo islaamkeennu wuxuu taagan yahay 4 markhaati ha la keeno qofkaasi uu sinaystay soo maaha 4 markhaati oo arkayaa la keenaya cidda waxaan sheegtay 4taa keeni weyda intoo maxkamadda la soo joojiyaa 80 jeeda lagu dhufanaya si dadka 10 loogu dhigo iyo cabra ay ugu noqoto cirdiga iyo sharafta aan cid ugu soo degdegta la arag marka arrintaas waa waxyaabaha aynu baraarujinaynay ka mid waxaa ka mid ah waxyaabaha inagala gudban mucallimka an najcala lahu nasiiban min ducaa'ina ducadaynu ducaynayno inaynu qayb siino rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusay qofku markaba adduunka ka tago waxyaabaha anfacaya waxaa ka mid a walad saalix oo u soo duceeya iyo cilmigu dadka baray siduu anfacaya waxa weeye dadku cilmiga baray baa u soo ducaynaya taasina waa xilka ina saaran dadka aqoonta inoo kordhiya iftiinka inaga saaray inaynu u ducayno waxyaabaha inagala gudban waxaa ka mid a inaynu ogaano qofkan inuu bashar yahay bani aadama oo uu gafi galayo oo aanu macsuum dhowrsoon ahayn mucallimkuna marka uu khaldamo habab lagula dhaqmaa buu leeyahay ta u horreysaa waxa weye khaladkiisa inaan laga dayan oo aan lagu raacin iyo gafkiisaasi hadduu iyo simbirraxa mara
in la dhaafo oo la asturo iyo in cudurdaar loo samayn karo iyo isaga laftiisa in loo naseexeeyo oo waxaani haddii uu yahay tuhmaadiya wixii la mida la yidhaahdo waxaasaa jira ee iska ilaali cirdiga sharafta ilaali arrimahaasina waa waxyaabaha inagala gudban weeye haddii loo dadaali waayo mucallimkii waxaa dhacaysa aqoontu in hoosu dhac ku yimaado dadkuna aanay jeclaanin aqoonta haddii aqoontii la jeclaan waayana ummaddaasi jahli bay isu bixi doontaa waxaa soo bixi doona sheekh liitoon fadwan karaynin dhakhtar dadka caameeya iyo injineer guryaha dumiya iyo siyaasi qalloocan oo saaqida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama intaynaan qowlkaa rasuulka soo qaadanin in shaaciraha ka gabiyo waxau ihi ina almucallima waatabiiba kilaahumaa laa yansaxaani idaa humaa lam yukramaa ninka dhakhtarka la idhaahda iyo mucallimka haddii aan xaqooda la siin oo la maamuusin qofka uma daneeya fasbir lidaa'ika in ahanta tabiibahu wasbir lijahlika in jafawta mucallima cudurkaaga iska xamil haddii aad dhakhtarka xumayso jahligaagana iska dugso haddaad mucallimka xumaysa buu leey ninkaa shaacirka ee gabayaya ilaan iyaguna musbaar bay dhinaca kale kaaga taagi doonaan haddii aad ammaanadooda xumaysa iyaguna ammaanaday ku hayaan bay xumayn doonaan waxa uu ka warramay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida loo tawqiirinayo ummadda mudankoodu ku jiraa mucallimku nebigu waxau ihi xadiidkii sugnaa laysa mina man lam yujilla kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaq muslimka iyaga ka mid maaha odayga weyn iyo islaanta weyn qofkaan qadarin da-da iyo ciraday leeyihiin daraaddood qofkaan dadka waaweyn qadarin naga mid maaha qofkaan ilmaha yar u naxariisan een qalbigiisa jacayl ku abuurin naga mid maaha qofka aan mucallimka iyo aqoon-yahanka xaqiisa siina naga mid maaha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waajibku mucallimka inagu leeya waa kaa weeye isagana maxaynu ku leenahay 15 arrimood baa looga baahan yahay mucallimkii si uu mudnaantaa u helo iyo ixtiraamka ah kow waxaa ka ah alikhlaasu lilaah hawshuu qabanayo waa inay daacad ka tahay oo dunyo unaanu ku doonaynin markuu dad soo saarayo barbaarinaya aqoon fidinaya ilaahay waa inuu ajri kaga raadiyaa adduunka yare waxba u tari maayee nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau uhi innama alacmaalu binniyaat camalka qofka waxaa lagu tixgelinayaa niyadu kolba ka leeyahay waxaa mucallimka la gudban alqudwatu alxasana inuu noqdo kudayaasho wanaagsan siduu ummadda tusaale inuu yahay oo ogaado inay ardaydu ku dayanayso ardaydu kama soo hadhaan had iyo jeer mucallimka siduu labisanayo siduu u hadlayo siduu wax u baranayo intay ku dayanayaan aad bay u badantay marka inta qowlkiisu wax saxayo waa inuu ogaadaa in ka badan ficilkiisu inuu wax saxo mucallim taariku salaada oo hablaha yaryar xodxodanaya oo jaad iyo sigaar cunayo budhaahaya taasi waxay keenaysaa arday liidatay soo saaraysaa dib jire ah marka mucallimku waa inuu ogaadaa in isaga lagu dayanayo marka waa inuu noqdo tusaale wanaagsan cibaadadiisa cilmigiisa akhlaaqdiisa ilaahay baa wuxuu uhi lima taquuluuna maa laa tafcaluun muslimka markuu ilaahay canaananayo wuxuu uhi qowlkiinu iyo ficilkiinu iyo iskhilaafin taasi ilaahay way ka cadhaysiinaysaa waxyaabaha looga baahanya mucallimka waxaa ka mid ah alsidqu walwafaau bilamaanati walcuhuud inuu runla yahay run leh oonu beenaalo ahayn inuu ballanku qaadana ka soo baxayo heshiisku waalidka la galo iyo ammaanadu hayo ammaanooyinku way kala duwan yihin ammaanada dadka ugu mudan ninka qasnada xoolaha inoo haya waxaa ka mudan qasnada dadka iyo caruurta iyo aayaheenna qofka inoo haya marka mustaqbalkii iyo aayihii ummadda iyaga ku abtirsanaya inuu hayo waa inuu ogyahay ammaano weyn inuu gacanta ku hayo oonu tacliintooda shaxaadin oonu akhlaaqdooda shaxaadin oonu ballamaha ka bixin ilaahay baa yihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca saadiqiin dadkii shahaadanayo ilaahay ka cabsada oo dadka runta sheega ku darma mucallimka waxaa looga baahan yahay atawaaduc inuu yahay qof aan kibraani ahayn oon afka taagaynin oon waalidka iyo ubadka iyo ummadda midna aqoontiisa uu leeyahay daraaddeed ku kibraynin taasina waxay keenaysaa caruurtuna inay markaa noqdaan dad mutawaadiciinahoo ka dhaxla arrintaas sidii aynu soo sheegaynay arrimaha
da'yartaa madaxda loo rabaynayay tawaaducay doonayeen inay ka soo bartaan caruurtoodu mucallimiinta mutawaadiciinta isdhuldhigaya nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan wamaa tawaadaca axadun ilaa rafacahu allah xadiidkii muslim qofku markuu dadka cafiyo cisi buu ka helaa nacasnimo kama helo marka uu isdhuldhigu ilaahay isu dhuldhigana ilaahay baa kor u qaada waxaynu ka doonaynaa mucallinka alcadlu walmusaawaa cadaalad iyo sinaan ina uu ku wado ummadda uu xukumayo ee isaga hoos umanaysa ardaydiisa ama uu maamulo oo qaarkoodna aanu si wanaagsan wax u barin qaarkoodna aanu ku qalloocinin ama kuwana saaqide iska tuur kuwan soo dhowey arrimahaasi ma jiraan madaxweynaha cadaaladda laga rabo mid ka weyn baa isaga laga rabaa wixii kula heshiiye ummadda iyo waxay uga baahan yihiin inuu u cadaalad sameeyo caruurta ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan qur-aanka ayna faraya samafalka iyo cadaaladda labadaba ashajaaca baa looga baahan yahay arrinta lixaad ee mucallinka looga baahan waa geesinimo geesinimadani miduu dad la dagaalamaya maaha laakiin waa shajaaca fi lqowl inuu hadalkiisa ku dhiiran karo waa yactarifa alkhata hadduu gef galo ardayda ka galo ummadda ka galo waalidka ka galo waa inuu istiqaalo bixin karaa waa inuu qaladkana qiran karaa laakiin waa inaanu odhanin sidii ninkii masriga ahaa nin masriya baa waxaa la yidhi haddii ardaygu masale qalada uu kugu qabto maxaad yeelaysa markaa wuxuu laa tastaslim bal talufu min baciid ha isu dhiibin buuhi ardayga laakiin jiiro dheer soo gal oo aad ku muujinayso intood isaga xiijisa inaad saxan tahay qaladku waa qalad qofku waa inuu idhaahdaa arrintaa waan ku qaldamay sida saxani waa sidaa waxaa loo baahan yahoo ka mida tawaaduca iyo sabirka asabru waxtimaalu lgadab cadhadiisa waa inaanu kula dhicin caruurta oo aanu dhibaato geysanin isagoo linafsihi naftiisa u argoosanaya laakiin waa inuu sida waalidka u dhaqmaa waalidku had iyo jeer dee da-yarta uu korinayo wuu dulqaata isaguna waa waalid caruurtani waa caruurtiisii kol hadday usoo ducaynayaan ninba ninkuu ka arday badan yuu ka laandheeraysan yahay waayo kuwaasaa usoo ducaynaya oo adduunka wax siinaya oo ixtiraamaya oo u mahadnaqaya marka waalidka inta la ixtiraamo in le kol haddii mucallimkii la ixtiraamayo caruurtiisii kuwani ay yihiin waa inuu u sabraa aanu ka aargoosanin siduu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa shadiidu bisurca inama shadiidu bisurcati aladii yamliku nafsahu cinda algadab geesi waxaa la yidhaha iyo nin adadag ninka naftiisa xejiya markay cadhooto tashjiic baa looga baahan yahay mucallimka inuu dhiirigeliyo da-yarta oo halkuu garaaci lahaa ama dhibaatooyin kale u geysan lahaa iyo argoosi waa inuu aqoonta ay ku tartamaan walaa tansawu lfadla baynakum dadku dheeraad bay kala leeyihiin marka kani dheeraadka uu leeyahay ka kale si uu higsado tartan buu gelinayaa siyaabo badan ayuu ku jeclaysiin karaa aqoonta da-yarta maca almuraacaati fi lfuruuqi alfardiya dabcan isagoo ilaalinayana waxay ku kala duwan yihin tacaawun buu barayaa da-yarta atacaawun inay iskaashato mu-asisada goobta waxbarashada mucallimka iyo ardaydu inaanay dad cola noqon oo isjiidaya laakiin dad iskaashanayo koox keliya ah inay noqdaanoo waxbarasho ku walaaloobay sidii salafuna saalix ay da-yarta ku tababari jireen xalqadii hore cilmiga waxaa la isa siin jiray khadka iyo qalinka iyo cunada iyo dharka iyo xaashiyaha intaasaa isweydaaran jiro oon la kala lahayn ashuuraa buu barayaa da-yarta wadatashiga waxaa la yidhaahdo in macallimiintii ardaydu wada tashan karaan ardaydu wada tashan karaan si uu tacaawunkii isku xidhnaantii usoo baxo alraxma baa loo baahanya naxariis inay ka dareemaan ubadku si waayahooda iyo dhibaatadooda iyo waxay garan kari waayaan ay u sheegtaan hadduu noqdo markaa mid kadeedan oo dhimbiila ka duulaya waxaa laga yaabaa carruurtu waxay garan waayaan inay weydiin kari waayaan rasuulku waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa laa yarxamu llaahu man laa yarxamu nnaas ilaahay uma naxariisto qofkaan dadka u naxariisanin xusnulmadhar waxyaabaha mucallimka looga baahanya waxaa ka mida muuqaalkiisu inuu wanaagsan yahay dadkan da-yartee carruurtan yaryarihii inta badan waa indha ku garaad leh waxyaabaha ay eegaan waxaa ka mida maqaalka qofka iyo hadalkiisa in ka badan bay eegaan muuqaalkiisa markaa mucallinku hadduu yahay mucallin xaragoonayo oo udgoon oo nadiif ah oo haybad leh waxaa laga yaabaa inay iyaguna jeclaadaan ay soo higsadaan haddaanu intaa midnaba lahayn waxyaabaha carruurta didin kara ayay ka mid tahay iyada oo dabcan uu iska ilaalinayo wixii kibir uu ku jiro ama dharka shuhrada ah ee ummadda ka dhex saaraya ama isqaadqaadkii iyo iskalifaadda intaa looma baahna
laakiin wixii sharcigu u ogol yahay qurux iyo nadaafada waa muhiim. imaamu maalik raximahullah markuu xalqadda cilmiga usoo fadhiistu kumayaal arday dhex taagan yahay waxa uu soo xidhan jiray dhar cad iyo cimaamado wanaagsan iyo cadar unsina halkan uu soo dhigi jiray. waxyaabaha cilmiga dadka jeclaysiinaya ka mid yihiin da-yartaasina muuqaalka aad bay u fiirsadaan, muuqaal fiican oo aan ahayn kii gaalada laakiin mid islaamku ogolaya. attaqwa alla ka cabsi baa loo baahan yahay, arrimaha u muhiimsana aqoontiisana waxyaabaha u kobcinaya ayay ka mid tahay shayga la yidhaahdo alla ka cabsigu. ilaahay baa wuxu uhi wattaqu llaha wa yucallimukum allah, ilaahay cilmi haydin siiyo aqoonta haydin koriye, ilaahay ka cabsada. mar kastood alla ka cabsiga sii badiso aqoontaa kuu kordhayso oo masaa'ilkaa ayaad fahmaysaa kuu furfurmaya. kelmadaaduna waxay noqonaysaa mid dadka gaadha. alkalimatu alxaya min alqalbi alxay, kelmadda noole ee dadka gaadhi karta anfici kartaa qalbi nool bay ka soo baxdaa. arrintaasina aad bay muhiim u tahay. qodobka 15aad ee mucallinka looga baahan yahay waxa weeye atamakunu fii maadati, waxa uu dhigayo waanu mutamakin ku yahay, qof si fiican u yaqaana oo ardayda aan ku dabarogaynin, iskuna daya inuu gaadhsiin karo wixii isagu uu garanayo. waa atamakun fii maadati, maadadaa uu cilmigoo dhan inuu wada yaqaanaa shardi maaha, laakiin waxa uu dadka u dhigaya waanu si wanaagsan u yaqaanaa. haddii taasi ay dhici weydo, su-aashii la weydiiyaba uu ka jawaabi kari waayo, yasqutu can acyini alaba, indhaha dhallinyaradu ka dhacaya, markaa kuma kalsoonaan doonaan. taasina waa dee wixii uu dadka kula ballamay wuxuu ahaa waxaan waan aqaanaa, dadka anigaa idinku dhigaya carruurta, marka ka run sheegiddii bay ka mid tahay. waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah asaasiyaadka, inta qof walba looga baahan yahay muslima cilmiga diiniga inaynu ka yaqaano, hadduu saynis dhigayo, hadduu beeraha dhigayo, hadduu engineering dhigayo. waxyaabaha haddana asaasiyaadka had iyo jeer qofka muslimka aanu ka maarmi karin waa inuu culuumta shareecada ka garanaya, ee wax ku ansaxayaan, wax ku barayaan, aadaabta wax lagu dhigo, wixii xalaal iyo wixii xaaraan, waxyaabaha la xidhiidha waa inuu wax ka garanayo, si aanu ugu dhigin dadka wax diinta islaamka ka soo horjeedo dadkoo dhammiba wada ogyahay. marka 15ka arrimood haddii isaga laga helo intaa aynu soo sheegnayna loo sameeyo, jiilka iyo qarniga aynu higsanayna quruxda badan ee dal iyo dad badbaadin kara ayaa soo baxaya. marka waxaynu leenahay labada qoloba inay xilkooda gutaan ayaa lagama maarmaana si carruurta aynu ka warwarsannahay ay noogu hagaagto. allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaacah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وارحم موتانا، وتمم نعمتك علينا يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.